الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليلوان السلام يا ميل جوجتين وقت كستد كجرتين وحن لا هيدين وناضو انت كدب كسو دوادا مقال كيران ما تجعلين اني لو ذاقو مقال كانوا عنوان كيسوي هاي سفر كي عبسي بدنا runtii safarkaasi ama muuqaalkan aan maanta safarka aan muuqaalkan maanta ka waramayo waa safar aada u gaaban oon anigu galay maalmo dhaweyd kaasaan ugu kala safrayay laba magaalo oo ku yaala Somaliland. Safarkaasi wuxuu ahaa safar aada ii cabsi geliyay runtii markaan leeyahay wuu ii cabsi geliyay. Horta safar kastoo la galaya ama qofku markuu safar galay sideedaba waxa weeyaan wuxuu iska leeyahay caqabaadkiisa. meesha doonta haddaad u safraysid waxaa doonta haddaad raacaysid bad ama berri ama cir wuxuu iska leeyahay dhibaatooyinkiisa. safarkan beriga ahaa ee aan galay waxaan galay goor habeena anigoo ahaa markaa darawalka gaariga. waxaa dhacday in runtii aan waxyaabo badan oo cabsi geliya aan kala kulmay habeenkaas. waxyaabaha cabsi geliyay waxaa ka mid ah habeenkii oo gurcda dhulkii oonan lighting lahayn kaliya waxaad arkaysaa leyrka gawaarida ku ag maraya iyo kuwa xagga dambe kasoo socda. leyrkaasoo intooda badan ay gawaaridu isticmaalayaan waa full beam ama waa kan weyn ee faarka ah. waxaana inta badan loo isticmaalaa dadku markay meela hawda ay mathalan ay socdaan dhul aanan wax layr lahayn oo mugdi ah ayaa inta badan la isticmaalaa. gawaaridu markaa waxay ku qasbeen mar walba inay furtaan leyrkaasi haddii kale qofka darawalkii ma arkayo waxa ka horeeya. leyrkaasi wuxuu leeyahay khatar aad ah runtii iyada oo dariiqa la maraya sidaan wada ogsoonahay dariiqyadu ay aada u yaryar yihiin. dariiqiyo aada u yar ay laba gaarina saa isku dhaafayaan ayaa waxaa dhacaysa markuu gaariga soo socday kaa hor yimaado isagoo full beam isticmaalaya inay adiga indhaha ay kaaga dhacayso kadibna ay kugu adkaanayso inaad aragtid waxa kaa horeeya amase inaad aragtid amaad ogaatid gaarigan kugu soo socda masaafaday nii dhaxaysa intay leeg tahay. gaarigan ma kugu soo dhawaanayaa mise waa kaa fog yahay. markaad isdhaafaysiin qiyaasta inta gaarigani marka uu ku dhaafayo qiyaasta kugu dhaafayo ayaa kaa khalkhalaysa. taasi waxay keenaysaa marar badan inay khatar geliso gawaarida taasi oo qofku markuu dazzling dareemo ama ay gaariyaashu leyrka saa u wada shitaan dazzling wax la yiraahdo qofka ku dhacaysa awna qofku si fiican hawna u arkaynin hortiisa. aniga oo runtii ku socday speed aada u yar marka loo eego dhulkan speedka lagu socda oo aada u sareeya oo gawaaridu inta badan iyaguna dhul ama dariiq fiican aanan haysan haddana dhammaantood marka ay safrayaan waxay ku socdaan speed ama xawaare aada u sareeya runtii ood la tacajubaysid ood odhanaysid qofka xawaaraha inta lee ku socda ee dariiqa sidan iyana maraya ma qof isagu naftiisa dilaya waa su-aalaad isweydiinayso. dhammaan waxaan ogsoonahay inay shilalku aada iyo aada ugu badan yihiin dhulkeena. sababaha shilka keenana inta ugu badan waa speedka gawaaridu ay ku socdaan iyo dariiqyadii oona aan ahayn dariiqya ku filan gawaaridu oo dariiq loogu talagalay inuu one way ahaado ama ku fiicnaan lahaaba inuu one way ahaado ayaa two waysa oo laba gaari is dhaafayaan dhammaantoodna waxay ku socdaan speed ka sareeya 100 mile per hour ay ku wada socdaan oo yacni 100 iyo 150 iyo wixii ka sareeya ay ku socdaan. xataa 100 kuma socdaan 100 waxay ka sareeyay dhammaantood ku wada socdaan 150 wax ka sareeya ilaa 180 bad qaarkood arkaysa ay ku socda ama ka sareeya. waan dareemi karnaa khatarta qofkaasi wajahayo ama darawalkaas oo isagu naftiisii dadkii awooday iyo dadkii kale ee ag marayayba uu khatar aada gelinayo. habeenkaasi safarka aan galay waxaa igu dhacday in gaari xawaare ku socdo oo gawaaridan waaweyn ee xamuulka oo iyagu 4 khashaafadood qofka ku furaya
4 khashaafado oo full beam ah ay kugu furayaan. yacni way kasii xagi jiraan baan odhan karaa gawaarida kale. gaarigaasi markuu iga hor yimiday totally waxba waan arki waayey. waxaad moodaa dasalinkii intuu iga batay inayba indhihii imadoobaan gaadheen oon aan arki kari waayey gaarigan inta uu iisoo jiro. taasoo igu kaliftay ama igu qasabtay markii dambe inaan dariiqa ka baxo oon baarkin galo. kadibna markuu gaarigii i dhaafay in cabaar joogay ayaan halkii kasii socday. runtii cabsi aad ayaan dareemay habeenka. waxaan cabsi u dareemay waxa weeyaan khatarta dadku ay ku jiraan anuu habeenkaa geli gaadhay. dad badna ay galaan maalin walba ay shilal ku dhacaan, ay dad badani ku dhintaan. waxa ugu badan ee dadku ay ku dhintaan dhulkeena waa shilalkana waxaa koosgareynaya sababaha inii soo sheegay. gawaaridii oo shuruucdii gaari kaxaysta dadka dirawalada dhulkan ee gawaarida wadaayo intooda badan dad uga soo baxay maaha iskuulo lagu bartay gawaarida. waa dad iyagu iskooda wax isku baray oo dhowr cisho intay yacni qof awyaro tusay kadibna gawaarida saa ku kaxeeya. ma aha dad intay si toosa casharo toosa qaateen yacni garanaya safety-ga iyo muhiimadda ay leedahay qofka dirawalkii inuu safety-ga ahamiyadda saaro. waayo gaari qof walba wuu kaxayn karaa, laakiin dirawalnimadu maaha gaariga inaad kaxayn karto ama joojin karto. laakiin dirawalnimadu waa inaad taqaanid dhammaan shuruucyada gaari wadida ay ugu horeyso safety-ga ama ammaanka qofka dirawalka. inaad aad iyo aad qofka ugu barto ayaa horta muhiima. meelo waxaa jira iminka bendin ah ama weecanaya una loogu talagelin in laysku dhaafo ama gawaaridu ay yacni inay isku dhaafaan. aad arkaysid gawaaridu inay isku dayaan inay isku dhaafaan, xawaarana way ku wada socdaan. taasaa inta ugu badana shilalka keenta ay dadku ku dhamaadeen. dadku wallaahi waxa qurux badan oo wanaagsan inay aad iyo aad taxadir aad u badan ay muujiyaan. waxaana qurux badan dadku inay iyagu ay ka fikiraan markay dhibaata timaado maxaa xal ah. dhibaata timid maxaa xal ah, shilalkii baa batay, maxaa xal ah. dadku inay ka fikiraan. roob baa imanaya, dooxyaa jira, dad iyo maal iyo wuxuu qaadayaa gawaari iyo wax walba uu qaaday, maxaa xal ah. laakiin dadkeena waxaad moodaa inta ugu badan inay dhibaatada laba qabsadaan ay noqoto wax caadiya noloshooda ka tirsan. dhibaatadaasaa jirta laakiinse wax xala looma raadinayo. dadku waxay noqonayaan dad la qabsada dhibtaa jirta. shilal baa dhaca, lama oranayo maxaa xal ah. waxaa qurux badan for example dowladdu ama wasaaradda gaadiidku inay runtii shaqadeeda si fiican uga soo baxdo. inay dadkan gawaarida dhulka ku badan oo runtii aanan xeerar hagaagsan ay haysan oo layska wado in loo sameeyo system ama hab dadka lagu controlayo, lagu kala ogaanayo qofka dirawalka saxda iyo ka kale. dadkan iska soo qaadanaya leesanada iyagii oonan imtixaano u marina ee iibsanayana inay dadku iyo dowladdu ka warhaysa ayaa qurux badan. waayo dadku inta ugu badan lacag bay bixiyaan, leesankana way iska soo qaataan, casharo uma maraan, imtixaanna uma maraan. waa wax laga naxo, runtii wax laga xumaado. waayo yacni waxaad moodaa dadku inay naftu inayna wax muhiimadaba ayna lalahayn. waxyaabaha badan een anu dhulkan ku arkay inta ugu badan keerlasnimada ama dhayalsigu wuxuu joogaa halkii ugu sarreysay ayuu joogaa. gaadiidka un maaha, waxyaabo fara badan inaa wax laga qabto u baahan baa jirta. haddii ay tahay caafimaadka dadka, hadday tahay waxbarasho oo awlawiyaada oo weliba daruuri ah oo weliba aasaasiyaad ah ayaa jira oyna laakiin dadku ayna warwahaynin ama ayna uba waarkaynba inay tahay wax problem oo inay wax laga qabto ay tahay. dadku maaha systemka ama sida loo noolyahay inay noqoto wax caadiya. dadku horumar maxay ku gaaraan? horumar marka lagu leeyahay waa inaad maanta halkay taagantahay maanta inaanad beri taagnaan oo isbedel u yimaado. dadka iyo dhulku siday maanta yihiin ama nolosha ay ku jiraan waa inay 5 sano kadib ka duwanaadaan, 10 sano kadib waa inay ka duwanaadaan. laakiinse haddii ay sanadadii socdaan ama waqtigu socdo dadkuna isbedeli waayaan dhibteeda ayay leedahay. aad baan adduunka iyo caalamka kale uga dambeynaa. waxyaabo fara badan ayaan aad iyo aad aan ugaga dambeynaa.
mararka qaarkood waad yaabaysaa, waad isweydiinaysaa dadkan dhulka ku nool miyuuna dhulkoogii ahayn mise dadkan marti bay ku yihiin. waxyaaban aan isweydiiyo because wadaniyada aadi noogu yar. waxyaabahan keenaya inay dhibaatada intan leegi dhulka ay ka dhacdo waxa weeyaan wadaninimadii oo inagu yar, oo dadku ayna laxa jecla ka qabinba dhulkii, looba arkaynba, muhiimadba loo siinayinba sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyin fara badan oo dhulkeena ka jira. laakiin dadku waxa qurux badan inay waxyaabo badan u fiirsadaan, xalkeedana keenaan. dad badan oo isku tegay baa wax bedeli kara, shacab isku tegay waxbay bedeli karaan. iskaa u qabso waxyaabo la yidhaaha ayaa jirto, oo dadku xataa ayagu intay is abaabulaan ay wax badan ay qabsan karaan haddii ay naftooda aaminaan, waxna inay bedeli karayaan ay aaminaan. laakiin taas horta ma jirta, ayaa ka horeysa wax walba. oo ma inagu jirtaa ruux wadaniyad ina faraysa inaan dhulkeena wax ka bedelo oo dhulkeena wax ka qabsano, miyay jirta? taasaa horta inaan isweydiino habboon. anaa soo koobaya habeenkaasi cabsidii i gashay. weligiina intaan dhulkan joogo weli safar habeena ma gelin, waxaad habeenkii ugu horreeyay een gala safar. aadna runtii wii cabsi geli, waayo iyadii oo dharaara ayaan anu safarka ka cabsadaa dhulkan sababaha nii soo sheegay awgeed. iyadii oo habeenana runtii cabsida ama khatartu waa 2 laab ama waa 3 laab baan odhan karnaa. marka dadku ha taxadiraan, dadka gawaarida wadana dhayarsiga ha iska daayaan, ha noqdaan dad sugi kara ammaanka naftiisa iyo ammaanka dadka saaran gaariga aw la socdo wado, iyo ammaanka dadka gawaarida kale iyo dadka kale ee gawaarida kale la socdo. intaba waa qofku inuu sugi karo ammaankeyga. laakiin haddaad istira meel heblaayo saacad iyo ama saacad wax ka yar ama saacad iyo wax yar ku gaadh oo speedkii ugu sarreeyay ku soco, waxaas wax maaha, caqligal maaha, wax loojiga maaha, wax shaqaynayana maaha. anigu markaan speedka aan ku socdaay aw yahay 40 iyo 60 inta u dhaxaysa dad badan ila yaabaan. markaan ugu badanahay aan 70 oo runtii ahaa speed limitka, highway speed limitka debadaha inta ugu badan 70 baa lagu socdaa. highway markaad socotid waa minimum, waa maximum speedka. yani halkan markaad ku wadid waxaad dareemaysaa inuu yani speedkani speed aad u sareeya yahay. yani anuma sawiran karo ama ma imagine garayn karo yani dadku siday dhulka caynkana inta badan raf u badan sida haddana speedka intaa leg ay ugu wadi karaan baa anigu waxyaaba caqligeyga geli kari waaye noqday runtii. wax badan xataa aan dadka in badan aan kala hadlo, laakiin dadku waxay la qabsadeen bay ay noqotay adaa lagula yaabaya. waayo problemka dhulkan jira waxa weeyaan haddaad problem jira aad tiraahdo furta ku fiiqdo oo tiraahdo waxaa sida weyn runtii wax laga bedelaa fiican, dadku aday dib kuula yaabayaan. waxay ku arkayaan qof yani ka sheekeynaya waxyaaba aan suurtagelayn oo kale, oo iyagu isku arkaya for example inay sida saxda ay ku joogaan oo kale ay isku arkayaan. laakiin dadku waxa qurux badan inay naftu waxyaaba ugu qaalisan ilaahay dadka ku amaaneystay weeyaan. haddii aad naftaada ammaankeyga aad sugi weydooda halaag naftaada aad u geysanayso, waa mid beritoona la weydiinaya markaad dhimatid. oo ilaahay uu mar walba ina leeyahay naftiina halaag ha gelinina ama halaag ha ku sugina. ilaahay intaasoo aayadaha inoogu sheegay. waa wax aad iyo aad u muhiima. adduunyada kale oo dhan nafta bini-aadamku waa ku qaali, aad baana loo suga. laakiin dhulkeena nafta bini-aadamku waxa noqotay waxaanan qiimo lahayn runtii, waxaanan qiimo lahayn ay noqotay. waxaa lagu odhanay kolley waqtigaaga ma dhaafaysid, waa run waqtigaaga ma dhaafaysid, laakiin adoona waqtigaaga dhaafayn oo saacad loo laga yaabo gurigaaga dhexdiisaba inay saacaddu kugu timaado. laakiin waxyaabaha khatarta naftaada gelinaya inaad ka dhowrtid waajib bay kugu tahay diiniyan, waa waxay waajiba weeyaan. ma aha saacadeedan dhimanay maanta dab halkaa ka socdo isku rid, xilligaygan dhimanaya dabka halkaa ka ololay isku rid, dee ma noqonayso, saa uma shaqeeyo. saa ma aha si yani dee maskax ahaan qofka bini-aadamka ay ku siinaysa ma ta inagu aan wadnaano waa taas. waxweyn dabka halkaa jira ayaan isku ridayaa weeyaan, saacadeedu maan dhimanayahay. dadku waxyaaba badan ay ka taxadiraan. ilahay waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahayna wada xifdiyo dhammaanteen. ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu isbedel wanaagsan insha allah ilaahay noogu bedela sidan. laakiin dadaal baa loo baahan yahay, dadku inay dadaalaan baa loo baahan yahay, waxyaaba badanna in laga dadaalo ayaa loo baahan yahay.
waan igu dheereeyay muuqaalka. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa mar walba inuu tawfiiqda ina waafajiyo, kuwii wanaaga isfara xumaantana iska reebo inuu ilaahay naga dhigo mar walba insha allah. aad baad u mahadsantihiin, waqtigiina qaaliga waad ku mahadsantihiin. intaan dib muuqaalkan muuqaal lamid dib ugu kulmayno waxaan ilaahay amaano allah iyo nooli kulanteen insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. badanaa ma soo gala inta ugu badan oo mashquulkayga badan, balse waxaan rajeynayaa insha allah inaan muuqaalo kale soo gelin doono dhowaan haddii la yiraahdo. waan salaamaya dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.